markale ku soo noqod wanaagsan soo dhawaada saaxiibadana qiimiga badan oo waa saaxiibkiina aqoonso waxaa noo sameeyay janaal kale haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad aragto janaalkeena cusub ku soo biir si aad ugu mid noqoto asxaabteena qiimaha badan maanta filimkan idiin wada waxa uu ku bilaabanayaa rag ayaa wixii kursi ku xirxirayaan hablo iyagoo markaasi moodaya inay hablahan yihiin kuwa saaxiriin ah si ay midaas ugu hubiyaan waxay ku ridiyaan biyo iyagoo markaasi fiirinaya inay yihiin saaxiriin iyo in kale markaana waxaan aragnaa laba naag oo lagu xiray tiyeer waxaana hareeraha ka taagan askar hubaysan nin ka mid a askartii ayaa dab soo qaatay isagoo markaasi qaybtooda ka gubay halkii ay ku xirneed si lama filaan ah naagti ayaa baaba'day maxaa yeelay waxay ahayd saaxiraad intaasi kadib goobta waxay u wareegaysaa goob waxbarasho waxayna guddiga waxbarashada dugsigaana shaaciyeen iyagoo markaasi derbiga ku qoraya inaanan halkaan laga ogolayn sixirka intaasi kadib waxaan aragnaa jalaagii u weynaa filimka taas oo ahayd gabar waxaana lagu magacaabaa Clara gabadhaani waxay ardada dhahan markasta saaxiraad waxayna markasta ku maadsadaan gabadhaani laakiin weligeeda lugma aysan ku yeelanin sixirka markii Charlie uu dhammaado waqtigii xiisadda waa ay soo baxeen iyada iyo ardadii iyagoo markaasi soo raacay bas intii ay baska soo fuushay ayaa waxay darbida ku arkaysaa digniin hadda Clara waxay ugu dambeyntii soo gaartay gurigeeda markay gurigeeda timid waxay bilowday inay wax iska diyaariso kadibna waxay bilaabaysaa inay internetka ka raadiso faahfaahinta sixirka si ay wax u ogaato waxaan iyada lagu tilmaamayo intaasi kadib dhawaaq ayaa waxay ka maqlaysaa gurigeeda dhexdiisa wayna soo baxday si halkaas u soo hubiso balse si lama filaan ayay gadaasheeda waxay ku aragtay haweeney aad ayay ugu naxday haweeneydii waxayna haweeneydii ku tiri waxaan ahay saaxirad muddo dheer ayaan gidaarka gurigaaga ku noolaa Clara ayaa markaana ku tiri waa kaasahay mar kale ku laabo derbiga laakiin naagtii sixiroolaydaheed waxay sixirkeeda ku sifaysay balanbaalis quraarad ah kadibna balanbaalistii waxay bilowday inay doosho saaxiradeena waxay mar kale ku loqotay derbigii waxayna markaas ugu sheekaynaysaa gabadhii hooyadeeda sida ay ahayd iyo sidii ayada ku soo korisay waxayna intaasi kadib u sheegtay inuu qof u imaan doono weliba daqiiqada yar kadib intaasi kadib waa ay isaga tagtay markaana Clara waxay kaligeeda joogtaa gurigii intaasi kadib Clara nin ayaa gurigeeda soo booqday kaasoo magaciisa lagu magacaabay Yacquuba markii uu santuuqii u keenay oo gurigeeda u geliyay ayuu isaga tagay isagoo markaas halkaas ka soo tagay inkastoo ninkan isagana oo ahaa mid sixiroola ah waxuuna soo qaadanayaa gaarigiisa isagoo markaas soo dhaqaajiyay waxaana la socota haweeneydii sixiroolaydeed isagoo markaas gaarigiisa ku wada ninkii saaxirka iyo naagtii sidii ay u soo socdeen waxaa wadada u galay nin booliis ah ninkii booliiska ayaa istaajiyay gaarigooda waxuuna ku amray inuu ninkii gaariga ka soo dego ninkii saaxirka ayaa soo degay waxuuna ninkii askariga ha weydiiyey maxaa ku jira gaarigaaga markaas ayuu ninkii askariga ku yiri adigoo raali ma tusi kartaa santuuqaasi markaana waxay fureen gaarigii waxuuna askariga arkay santuuqii inkastoo naagtii ay weli ku dhex jirto gaariga markaana ninkii askariga waxa uu la yaaban yahay santuuqaani halka uu ka keenay waxuuna ku leeyahay santuuqaani maxaa ku jira oo aad wadid waxuuna ku leeyahay waa iska caadi oo keliya waxaa ku jira alaabo anigaan u baahanahay intaasi kadib askarigii waxa uu bilaabay inuu garaaco saaxirkii waxuuna u yeeray askartiisa isagoo markaas ka qabtay ninkii saaxirka ahaa waxuuna askarigii dab qabadsiinaya gaarigii isagoo markaas nafta ku shidaya balse markaana waxaan aragnaa Clara gurigeeda waxaa soo booqatay laba gabdhood kuwaasoo ahaa saaxiriin intaasi kadib waxay soo wadeen gabadhii Clara iyagoo markaasi keenay laba hablood oo meel ku xiran kuwaasoo la ciqaabaya intaasi kadib waatana Clara iyadoo markaasi fiirinaysa balanbaaleydii sidii ku duuli lahayd maxaa yeelay balanbaaleydana waxaa duulin kara qof saaxir oo keliya waxayna balanbaaleydii ka taabanaysa dusha iyadoo markaasi duulaysa waxaana la gaaray saqdii dhahaa habeenka waxayna soo xasuusinaysaa naagtii la gubaayay weliba naagtaani waxaa loo gubaayay si aanan caadi ahayn intaasi kadib hal mar ayay soo buraarugtay iyadoo markaasi soo toostay waxayna ku soo kacday wax madow ah oo horteeda fadhiya aad ayayna u cabsatay markii aragtay waxaasi maxaa yeelay waxay ahayd goor habeennimo ah intaasi kadib waxay arkaysaa naag meydda oo sariirteeda saaran aad ayayna u cabsanaysaa iyadoo markaasi qaylinaysa laakiin iyadoo qaylinaysa waxa u timid walaasheeda ka weyn waxaana soo waday walaasheedii ka weyneed waxayna bilaabeen inay markaasi quraacdaan oo ay quraacdii u fadhiistaan intaasi kadib waxay bilaabeen inay sheekaystaan oo ay quraacdii ku raaxaystaan markaana gabdhii waxay isweydiinayaan ninkii inoo imaanayay goormoonu imaan doonaa oo halkaana naga kaxayn doonaa waxayna ku wadaan ninkii santuuqii weynaa u keenayay kaasoo lagu magacaabaya Yacquub waxuuna ninkaas inta badan qaadi jiray sixroolayaasha isagoo markaasi xadka ka gudbin jiray markaana Clara waxaa la joogtay hooyadeeda waxayna ku tiri ninkaasi ma laga yaab inuu halkaani imaado dabadeedna Clara iyo walaasheeda waa ay soo baxayaan si u soo hubiyaan derbiga markaana gabadhii yareed ee Clara ayaa waxay soo gashay derbigii iyadoo markaasi soo xasuusanaysa qaabkii loo gubayay naagtii markaana iyadoo halkii dhex socota ayay waxa aragtay jaraanjar meeshii ku taala waxayna markaana arkaysaa gacan ka soo socota hoosteeda intaasi kadib walaasheeda iyo hooyadeeda aad ay walwalayaan maxaa yeelay gabadhooda uma jeedaan
intaas kadib gabadhooda ayaa si kedis ugu soo dhacbixaysa derbiga. Clara hooyadeeda iyo walaasheeda aad ay u cabsadeen maxaa yeelay gabadhooda waxay ka timid meel aysan ka filaynin. markaana Clara walaasheeda ayaa soo baxday iyadoo markaas dib dugsigii walaasheeda waxayna halkaas ku arkayaan basalkaasi soo gaaray. intaas kadib waxay arkayaan naagtii saaxirada ahayd taas oo u iimaanaysay Clara. naagtana waxaa wada booliiska. intii ay naagtii booliiska wadeen ayaa naagtii waxay bilowday inay la dagaalanto booliiskii. intaas kadib Clara hooyadeeda waxay u tagaysaa lamaane kale oo ay saaxiibo ahaayeen. markii Clara hooyadeeda ay halkaas tagtay waxay ogaatay ninkii Yacquub inay booliiska gacanta ku dhigeen iyagoo markaas xiray. markaana waatana Clara iyadoo markaas naxsan waxayna ka naxsan tahay markasta waxaan ay la kulmayso. intaas kadib waxaa la gaariyay habeenkii waxayna isku qabanaysaa indhaha iyadoo markaas murugsan. intaas kadib waxay arkaysaa walxamadow kuwaasoo weliba gacanta qabanaya. markaana waatana iyadoo la fadhisa walaasheeda aad ayayna u murugsan tahay waxayna diidaysaa inay taabato walaasheeda waxaana markaana timaha u dabayso walaasheeda. intaas kadib Clara iyo walaasheeda waa ay soo baxeen iyagoo markaas ogaanaya inay baar yimaadeen kuwa saaxiriin iyagoo markaas sixray. intaas kadib waxay ka fikirayaan qaabkay uga hortagi lahaayeen saaxiriintaasi waxayna markaas wax badan ka weydiinayaan dadkii iyagoo markaas aan u sheegaynin wax micno la qaato leh. intaas kadib waxay arkayaan muraayadii oo dildillaacday aad ayayna u yaabayaan waxayna markaana soo fariisanayaan goobtaani iyagoo markaas ka wada sheekaysanaya waxaana dhacay. markaana waatana Clara iyadoo markaas akhrisanaysa buug waxaana guriga la joogta walaasheeda waxay fiirinaysaa balanbaalistii. intaas kadib ay soo baxayaan iyagoo markaas yimid baar laakiin Clara walaasheeda ayaa waxay sameynaysaa wax la yaab leh iyadoo markaas galaaskii ka dhigaysa nooc kale. markaas Clara walaasheeda ayaa waxay ku leedahay samee waad sameyn kartaa waxayna soo qaadaysaa galaaskii iyadoo markaas isku dayaysa inay sameyso. intaas kadib walaasheeda ayaa la qabanaysa galaaskii waxaana hal mar tagay korontadii. markaana waxaan aragnaa iyagoo isla haya galaaska waxaana hal mar soo wada fiirinaya dadkii iyagoo markaas la yaaban maxaa yeelay kuraastii dhameed ayaa kor fuushay dadkiina aad ayay uula yaaban yihiin. markaana way ka soo tageen halkaasi iyagoo markaas yimid gurigooda waxayna la yaaban yihiin wax ay sameeyeen wayna jiifteen iyagoo markaas murugsan wayna soo kaceen iyagoo markaas arrintaasi ka murugsan. intaas kadib Clara hooyadeeda waxa u yimid nin booliis kaasoo u sheegay in baarka xali lagu sameeyay sixir waxaana markaas sixirkii ku eedeeyay gabdhaheeda iyadana waxay ku tiri maan midaasi ma dhacaysa maxaa yeelay gabdhihiga ma yaqaan wax sixir balse askari waxa uu ku adkeysanayaa inay gabdhaheeda saaxiray yihiin. kadibna waxaan aragnaa Clara iyadoo markaas laga daaweynaya sixirkii waxaana lagu duriyaa cirbado badan. markaana Clara waa ay saaxanaysaa waxayna soo xasuusanaysaa sixirkii iyadoo markaas ka gudbaysa goobtii xuduudda. intaas kadib waxa ay soo fuulaysaa darbigii waxayna halkaas ku arkaysaa laba hablood oo halkaas ugu wacaya. markaana waa ay soo baxday iyadoo markaana guri timid iyadoo walaasheeda waxayna markaana halkaan ka raadinayaan hooyadooda. intaas kadib waxay arkeen hooyadoodii isku soo tuuraysa guri. intaas kadib waxay yimaadeen goob lagu ciqaabayo gabdho waxayna darbiga ka fiirinayaan gabdho lagu xirxiray kursi kuwaasoo weliba looga shakisan yahay sixirka waxayna gabdhahani gacanta ugu jiraan askarta. isla markiiba askartii waxay gabdhihii ku tuuriyaan biyaha si u jeekimaan inay saaxiran yihiin iyo in kale. kadibna gabdhihii waxay ka soo bixinayaan biyaha waxaana gabdhahaasi ka mid ah gabadhii Clara oo waxaa qabtay askarta waxayna markaas tijaabinayaan inay saaxiradeed iyo in kale. markaana mar kale waxaan aragnaa Clara oo ku soo noqotay gurigeeda iyadoo markaas u timid walaasheeda waxayna bilaabeen iyadii walaasheeda inay sheekaystaan waxaana markaana aragnaa askarigii kaasoo markaas u yimid gurigooda waxaana u sheegay inay gurigooda ku nool yihiin saaxiriin badan iyagoo markaas ku jiro darbiyada waxayna dhagta saaranayaan darbiyada si u hubiyaan waxaana ku leeyahay maahan waxaad baqli kartaan ama aad arki kartaan sababta aan u gubnay saaxiriinta ayaa ahayd waxaan ka soo horjeednay inay ku faafaan magaalada. intaas kadib askarigii waxa uu biskoolad ku qabanaya dhammaan familkii waxaana ku leeyahay hadda ii sheegaya saaxirada waxayna u sheegayaan dhammaan runta iyagoo markaas u sheegay wax halkaan ka jira. markaana askarigii waxa uu biskoolada ku hayaa Clara isagoo markaas keenay qol waxaana ku leeyahay yaa waa saaxirka ii sheeg balse gabadhii wax uma sheegaysa isagoo markaas aad u naxsan ayaa waxa uu ka cabsanaya in hal mar la soo weeraro. intaas kadib isagoo ninkii wareegaya gurigii ayaa waxa hal mar qabanaysa gacan aan la garanayn meesha ay ka timid. markaana waatana Clara waxayna u timid walaasheeda waxayna markaana aragtay gacantii ay horey u arkaysay waxayna ogaatay inay tahay saaxirad. markaana waatana waxayna ku jirtaa kaligeeda qol iyadoo markaas aad u murugsan waxaana ka furmilaa qolkii waxaana qolkaasi ku jiray saaxiriin badan halka walaasheeda iyo hooyadeeda ay ku furmeen qiiq badan iyagoo markaas qiiqii u dhiman raba. intaas kadib gabadhii Clara aad isku dayaysa inay badbaadiso walaasheeda si halkaan ugu bixiso waxaana gurigii u gubinaya awoodda sixirkooda isagoo markaas kor ka gubanaya. intaas kadib askari wax uu joogaa banaanka oo weli ma uusan dhimanin oo waa uu nool yahay waxaana halkaas ku dhamaaday filimkii maanta ku salaysnaa sixirka waxaana lagu magacaabaa filimkani Witch Hunt
isagoo markaasi soo baxay 2021 maanta muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay intaan muuqaalkan midkii xiiso badan kulmi doono sidaas weyn baadiino